deegaanka loo yaqaan Tukaraq oo ka tirsan gobolka Sool waxa uu dagaal ku dhexmaray ciidamada dawladda Somaliland iyo kuwa maamul goboleedka Puntland. haddaba dagaalkaasi iyo waliba sidii uu u dhacay khasaaraha ka dhashayba waxa ka hadlay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo iyo waliba Ciise Axmed waxaanay faahfaahin ugu horeyn ka bixiyeen dagaalka halkaasi ka dhacay. weerarkii gardarada ahaa oo qaawna oo saaka soo qaadeen ciidamada Soomaaliya ama maamulka Soomaaliya Puntland saaka markay waqtigu ahayd 5 barkii way laba aag dagaalka weerarka soo qaadeen labada aag wuxuu ahaa dhinaca bariga oo laamiga xiga dhinacna wuxuu ahaa dhinaca hawdka labada aag ba ciidanku diyaar buu ahaa ciidan goobtiisa difaaca ku jira buu ahaa si muglaba isaga caabiyeen dagaalkii bilaamay 5 barkii wuxuu soo gabagaboobay abaari 10 barkii labada aag basif ba xadle ba loogu jabiyay waxa la gaaray beesaskoodii ay fadhiyeen taliska oo ayaga god qaboobe waa la dhaafay marka halka la marayay xabadii joogsateena ciidamada qaranku waxay dib ugu soo noqdeen goobahoodii ay hore ay fadhiyeen difaaca Tukaraq 7 kilomitir difaaca ka horeeya degmada Tukaraq weerartu halkaas ay istaagtay ciidanku si looga bartay maalintii horeba guul dagaal waa dhacaa laakiin guushii maanta dhinaceena ay ahaatay laakiin waxaan hadda haynaa oo hordhaca in gaadiid iyo maxaabiisba laga hayo labadaasba waa confirm waxa kaloo ina jira ciidamadooda khaaska soo tababaran oo ciidamada badda marinka oo loo yaqaan saarsan iyana ciid dagaalka ku jireen iyaga ruuxooda laga hayo maxaabiis iyo gaadiid wixii xogta markay soo ururto isu soo wada dib dhacdo oo aan soo wada ururno xogta baanu insha Allah wixii marxaanti iyo evidence ama cadeyna aad arki doontaan sidii markii hore u dhacday isku dayeen inay ka faa'iideystaan tabaalooyinkii dhacay ay duufaanadu sameeyeen sida ay doorkii horena isiraahdeen way dabaal degayaan gaada ayay maantana isiraahdeen dad baa tabaalaysan xaggaas ay isugu yaaceen weerara oo maxaa bari fura hase yeeshee waxaan u sheegaynaa mar kasta iyo goor kasta ciidanka qaranka Soomaaliland in uu heegan yahay haddii rabadaan lagu jiro haddii iid lagu jiro haddii dhibaato kala dhacdona ay mar walba mudnaanta sare siinayaan sidii ay u difaaci lahaayeen dadkooda iyo dalkooda iyo qarankooda sidii uu madaxweynuhu hore u sheegay mudane Muuse Biixi Cabdi annaga haddaan Soomaaliland nahay nagama go'na mana doonayno in aanu bisha rabadaan ee ay ummadda islaamku ay doonayso inay cibaadeysato inaanu dhiig daadino hase yeeshee qoladaasi way ka suurtooday way nagu soo duuleen waanu iska celinay nabadgelyo ku wada noolaasho deris wanaag ayaanu intaba annagoo aanu diyaar u nahay baahamarkii ugu horeysay ee ciidamada dawladda Somaliland iyo waliba kuwa maamul goboleedka Puntland uu deegaankaasi Tukaraq dagaal ku dhexmaro Batri Koosar Maxamuud telefishinka Ariel Hargeysa.